السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمروين ولكن ما موجود بإذن الله ما أنت حسيتوس وصلت مننا مساجد كتوفيق ودباتك التاج أنت رن meeshaan Soomaali dadku ugu baadisay laakiin si qof wajiga sawirkiisa ma aragtay in si loo wadiyo Soomaali maanta waxaan ballan qaadnay anaga bahas xaafadanaay dhibaatada ka jirta masaajid tawfiiqna banaanka soo dhigno hadaa aad u baahnayn in kaamarad kugu dhacdo banaanka waa ka istaagi kartaa laakiin maanta masaajidkeena inaan badbaadino aan diyaar u nahay anaga qabiil ma rabno meeshan ilaahay lagu caabudaa caruurteena wax noogu barto taas taa laakiin iyo soo dhaw waxaan ku yiri dad bamba meeshan jooga hadda banta aniga maanta meeshan igu horeysa laakiin in maartay dadku waxay meesha yimaadaan inay ku cibaadaystaan صح in la duubo ما أنت عبادة way ka baxsan tahay ما أتاك ka baxsan tahay saas soo sameeyeen darbiyada inaan ku soo degsan marna lagu dhajiyo week hore balantan jirtay laba kun ها week hore aad ma santiin walaalkiin may mooge maanta waxaan ku suganahay masaajidka tawfiiq waan rabnay in reality runta aan ka sheegno waxaa jooga police waxaa jooga waqta waxaa la rabaa in lagu kala ogaado dadka dhibaatada ku haya masaajidka tawfiiq shacabka reer Oslo iyo Soomaalida Norway ku dhaqan marwalba waxay diyaar u yihiin in masaajidkooda ay badbaadsadaan annagana aan ka midnahay run ahaantii walaalkiin masaakiin may mooge oo idin leh maanta cudurka iyo wasakhda ku jira tawfiiqna ka saarna diyaar u nahay annaga qabyaalad dalkeena naga soo waday qabyaalad dhulkeena naga soo baabisay qabyaalad runtii ma joojinayo wallah ma joojinayo qabyaalad annaga runtii dalkeena naga soo baabisay maantana qabyaalad inay masaajid naga baabisay diyaar u maniin shacabka reer Oslo waxa dhamaantiin idin sheegan inay soo baxdaan masaajidkiina aad badbaadsataan wadaadadeeni iyo dadkeeni maanta waxa kala dhex joogo in maxay waqti iyo booliis oo kala dhex istaago saddex kun oo madlam laga tuuray marunaantii waxa qabto waa sheegay kartaa 3 kun oo madlam laga tuuray sharciga cidii uu banaynayo anaga diyaar u nahay inaan la shaqeeyo marka wax laga tuuray iyo wax kale ta anaga ma rabno anaga waxaan rabnaa masaajidkeena inuu noo badbaado adinka diyaar muutii masaajidkeena inuu noo badbaado maxaa marka Soomaali keenay maxaa keenay in booliis iyo fakta oo kala dhex joogo anagoo dad cid u yar masaajidkan hadii dantiisa la doonayo waa in labada group ay ka baxaan dad dhexdhexaad loo dhiibay masaajidka Soomaaliga ka dhaxaya cid gaarna male marka labada group okay dhanba isku daray aad isbaayimi sheekh Abiyad baayimi sheekh Abu Dal Hayimi okay labada group ma iskala masaajidka shacabka Soomaaliyeed oo marka labadiina ma rabtiin inaa banaanka uga baxdaan adiga marka maxaa isku fahmi laadiin marka isku fahmi laadeen masaajidka ummadda ka dhaxayn maayo haye marka masaajidka iyo cibaadada Ilaahay adinka ka weyn maya masaajidka ummadda isku dhisay cid gaar ma qaban afartan iyo laba kun oo Soomaali ma ka dhaxaya maxaa keenay anigu waxaan deganahay almost 7 sano magaaladan maxaa keenay inuu dhibaatada tawfiiq iyo ishaysiga oo ilaa intaas u socday maxaa u give up garay weysan oo dhigaysa dii maanta masaajidka Ilaahay u xirmaayo adimay su'aashan ku weydiinay jab masaajidka Ilaahay hadduu xirmaayo masaajidka Ilaahay hadduu xirmaayo maxaa adiga u dhiiwaysa Ilaahay dartiis ana banaanka uga istaaga hay Soomaali baa bilaad kartaa group gaar oo diini ah ama siyaasi ama qabiil lama qaadan karo ummadaas masaajidka dhaxay ummadaas hawsha talada ummadda loo celiyo adi diyaar muuta masaajidkiina badbaado waana ka shaqeynaa masaajidka cidna uma afduubnaanayo okay marka adu waxay kula tahay inuu cid afduuban yahay cid uu afduuban shacabka Soomaaliyeed u sheeg لا نوشك هذا كبير ما لسه ماشي كان حتى اوغي قف كان لقب وانا هدو waxaan fiiri safka ilaa meel dheer u maraa marka misdaysaa inuu xataa cidna aan laga hor istaagsanin waa aniga la iibiday aniga waqtiga la iibiday maxaa lagu diiday waxa la igu diiday groupka yaga naba taageersan haye baa la igu diiday marka waa maxay naba taageersanid iyo groupka kala baxsan faalisa maana walaga waraaqaha bugta u diray Burundi meesha la iska diiwaan geliyo
oo dadka diidan oo dhan waxay leeyihiin sheekh hal su'aal aan rabaa inaan weydiiyo adiga laftigaaga saari adiga laftigaaga waxaad masaajid intaasan deganaa weligeena kuguma arag tawfiiq adigoo jooga aniga wala hawla wala quwwata illa billah masaajidka aniga soo masaajidka mar walba ku tukado salaad jimcaha abardada aqoon ilayn ولا شيخنا ماشي هذا ما يموج ما يموج ماشي Soomaaliya dadka islaamka ama Soomaaliya ama Soomaaliya ma halkan wala gooniyo ma laha meesha niman baa noo hayay sheekh muslimiinta iyo sheekh kale noo hayay meesha way raacdayeen meesha jamhad baa haysatay qabsatay waxay ka dhigeen say rabaan dadka inta caawa hadlaysa oo kamid ah hadday Soomaaliya dhigaan masaajidka oo kale isugu dhibaan la ismagaajin sicid oo ka hadlaysa ma nimankan waxa laga leeyahay marka adinka waxa qabtiin waxay tahay in masaajidka dadka laga wareejiyo Soomaaliya la dhaxdigo safri ma halka ha u tasho Soomaaliya halka la dhigo Soomaaliya u tasho ama Soomaaliya dadka loo dhibay ama ayagu ha qabsadeen doorasho ama qalmo qof u dhigteen waxay ma sameeyeen ayaga laakiin Soomaaliya halka midaysan halka ha dhixi adigan qalabka laakiin ma meel of Dumaaya istiro cusub asweyn qolo cusub asweyn in kale laga yeelmay marka waa saas way xaalad ana kuma santaa anagu dooni mayno labada baarti dooni mayno haye dadka meesha isku haystana dooni mayno waa jabhadii Soomaaliya soo burburiyay dhalinyarada hanoo ku dhiibay masaajidka dhalinyarada inoo ku dhiibay baanu taageersanahay jabhad ma rabno jabhad waa tii Soomaaliya soo burburisay waxa meesha isku haysta halka hoos fadhiya waa sidee korna waxa saaran USC oo dad waa weyn horgacaya marka ma rabno taageeri kari mayno masaajidka lacag baa laga gashay hanti baa laga gashay waan u soo dhawartay yeeri mayna marti ka noqon waxaanu rabnaa in ubadkoodu ay sii maanaan dhalinyarada hanoo ku dhiibay مساكين اللي لا نقول ما نبغى نسكو هاي جامعة السؤال كويدي هذا واحد تاجنت لبضان لنعب ومقلمان إن مساجد كأي ومقلمان قبيلي وهنا قبيلي يسوي هو سيكمل قبيلي صح قبيل ما نقول تاجرنا ماي مساكين تاجرنا صح تذكر ماشي كنت لأن وقت قاله أوكي جامع محدي ذي إن أذنك أصاب بحضان شعب كراء أصله الصومالي النرويج دكان قرب كينا كديجتان ولا بدو دبا رنتو شكتان حدير يا سبب شباب تاجرنا أنا تاجرين مني يجان دبجنا مساجد يجان دبينا كنا تاجرين جالبنا أول ما ارتبان وقاعين ساكت سنة كمان تكون مساجد مركو على هذا تكسيلي أو ذا قبيلة مثل هنا دافع وين مساجد كوتو شو خمس يوم كتير ما أنت وحنو من مساجد اللي بالباديو صح ما أنت مساجد اللي بالباديو ومن تصوم اللي بدبلوا عليه منقول علماء ما كعرتي وحقرت كيف كعرني وحمقرتها سوايسة المساجد كل توجن مركز النسي كل واحد توصل ويهود بيوتهم كله والتيار رقم مساجد سوايسة بس كي توجن ما توجن كذا نهري وما صدق عربي أنا ويل كان يركا ويدي مدام وياي وبح سكرايو سومالي النرويج كنول هذا أهم محامي سنته أنا waxaan misan labadooda wax isku haystaa wax meesha loogu baahneen waxa la beet ilaahay waa meesha waxa labada beet labadooda in iskartaan maadaama isgaran way marka aniga waxa qaba dhalinyarada loo dhiibay okay ma sha Allah codka dhalinyarada ilaa intuu gaaray islada wali cod fiican ma hasan laakiin waxa rajaynayna cod fiican helno insha Allah shacabka reer Soomaalida Norway degan adoo la hadlaa maxaa dhaysaa waxa dhaala shooda isgarta dib isku noqdo insha Allah maadaama tiin abiyaashay ma soo baxda dadka adiidan soo baxda aado ma santaay fiitoore laakiin dad waxaan ahay ما يرفعك سامر كور والسودان قدود ده كم ده وربعين شهر كان ميد عدد تقصد ورنكسلوجية كانوا قالوا أصلا دلك النرويج يورفعك هو كحوم يعني مرة واحد كسر على سفر ومالنا بقنا مثلا صوماليا كنت حلقات وروحهم ما هيدخلوا قصاد المصعد المساعد كان ترمز بين بوكسر باللومين 1982 متقنا وحنا صوص على بارك الله شيخ عمر الفاروق وتوفيق وبحيي انت الله كاني لكن على بعض على حتى هي sideedaba masaajidku waxa weeyaan wuxuu leeyahay magac la yiraahdo tawfiiq islaamig laakiin qolo 9 qof ka kooban oo u dhiibanay odayaal ah oo ugu talagalnay masaajidka inay noo dhisaan oo ilaahay dartiis ugu dhiibanay 9 qof baa waxa la bixin magac la yiraahdo tawfiiq culture house ayagii baa magac saxday waxayna ka dhigteen masaajidka inay leeyahay hadda dadka Soomaalida Norway ma oga masaajidkan 9 qof baa iska leh
haddii ay geeriyoodaan sagaalkaas qofood ciyaalkooda dhaxlay marka dadku uma haystaan inuu this not a masaajid dadka waxay haystaan masaajidka inuu yahay tawfiiq islaami it's not ma masaajidka waa adigu maqli jirtay waxbaa la bilaqaystay waa markii ugu horreysay masaajid Soomaali oo la dhaco magacii baa waxa loo baxsaday wax la yiraahdo Islamic culture house anigu waxaan baarayay muddo 2 years ah sagaal qofood baa masaajidka iska leh hadday sagaalkaas qofood ay geeriyoodaan waxa dhaxlay ilmahooda tusaale yar baan rabaa inaan ku siiyo waxaan la xiriiray looyaradii iyo laba darbi ayaa dhinaca ka dhismaha oo dhibaato soo gaartay waa la xiriir waxaan ku yiri maxaa khaldan wasaaradda cadaaladda weyduur waxaan ku yiri meeshu waa masaajid sababta aan lacag u bixin maxay tahay waxay yiraahdeen meeshaan masaajid ma aha hadduu aan lahaa masaajid qarashka ku dhacay 20 milyan oo koron ee u dhigmantay 2 milyan oo dollar wasaaradda cadaaladda bixin lahayd waxay yiraahdeen masaajidkan 9 qof baa iska leh marka maya maadaama tan suxufi oo aad looga yaqaan dalka Norway masaajidkani this is not a masajid masaajidkani ilaa laga saaro dhexda waxa la yiraahdo culture house oo 9 qofood oo masaajidkani sheegtay lahaanshihiisa laga saaro waxa weeyaan labadan sano dhibaatada inta way tagnaanaysaa anigu markuu aan dadka soo jeediyay warniman yahow laba sano ayaa masaajidkani waxa weeyaan problem ka taagnaa waxaan dhahay anigu waxaan sameeynaa haddaan anigu teeda lagu raacayo wiilka dhalinyarada aad hadda oo aad wareysatay anigu waxaan dadka soo jeediyay masaajidkani labadan qolo oo iscilsanayso ha laga saaro group dhalinyaro oo dalka wax ku baratay ha lagu wareejiyo qoladan oo iyaga laftigoodana ma taqaanaa wali ku dhagan masaajidka oo labada sano anigu waxaan taaganahay war hay iscasilaan oo ilaahay ka baqaan laakiin mid baa jirta meesha ugu dadku dhaqaalay ugu barteen masaajid adu arki jirtay maya masaajid Soomaalidu arki jireen ma taqaanaa oo asaga wax la siiyo dadkani wax u barteen dhaqaalay iyo qarash dad baa intee lacagta dhacay anu Nairobi baan tagay nin baa ku furtay cafe weyn $200 buu ka dhacay masaajidka marka waxa fiican aan runta fiir maya waxa fiican guddiga masaajidkani 9 qof ee qoratay masaajidkan iska leh waa inay ku soo wareejiyaan shacabka Norway waana in guddiga masaajidka is casilaan waana in guddi dhalinyarada lagu wareejiyo wax ka baxay waa Suldaan Godoko بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على دمان وإلى السلام waxaan meesha ka dhacay caawa aad baan uga xumahay waxaan walaalaha midna masaajidka iyo dhammaan waxaan halkan uga cadaynayaa in kulankii la isugu yeeray nimankii u yeeray inaysan uga sharci ahayn maxaa yeelay nimanka sheegaya inay kulankan qaban karaan waxay ahaayeen niman dhacay hal sano iyo bar ka hor waqtigooduna uu dhammaaday kuwa hadda ay leeyihiin waxbaa loo qaadayaana in ay yihiin dad dadkaasina waxa weeye waa dad waxaan walaalaha u sheegaynaa marka in awalan warqadan waxay ka timid xafiiska gobolka ayay ka timid waxaa la qoray 23 bishii Juun 2019 waxay organization markii masjidka la markiisii wixii soo ku qoran waxay lacag ku dalbeen 8,898 dawladdu waxay aqbashay 5,508 inta kale dhalashadooda waa qalad bay yiraahdeen saad ka arkaysaan halka u afkalaatu macnaheedu waxa weeye waa dadaysan caday dhalashadooda waa laga saaray dadkaas haddana meesha markay yimaadeen waxay cadeeyeen in la soo qaato aqoonsi la soo qaato oo qofkii laga waayo meesha la rajistar garanayo taasi waxay ku tusaysaa dad badan inay intay ka saareen doonayaan haddana inay hadhow yiraahdaan dhalashadaadii waxa weeye meesha kuma jirto waa marka koowaad midda labaad nimanka ay keeneen 4 sano ka hor baa la keenay kuwii iyagu ay keeneen bay hadda soo qoreen kuwaasna kuwii ka dambeeyay bay keeneen intiisa uu wareegayo arrinta wareegaysa weeye waxaan sheegaynaa dadka masjidka madaniga ka ah ama xubnaha masjidka ah waa af duuban yihiin waddanka ummadda Soomaaliyeed joogtaba ha ogaato waxa la isku haystaa inaysan ahayn qabiil waxyaabaha social media iyo idaacadaha lagu baahiyay baraha website lagu baahiyay ee ah in qabaa'il ay haystaan iyo in reero u midoobeen iyo in hore laga badsaday wixii ay raadinayaan arrintaas waxba kama jiraan waa been weeye masjidka waxaa ku habsaday koox burcada oo is haysata oo isku xiran oo doonaysa masjidka inay dhacdo musuqmaasuq dhaqaale iyo mid maamulna la soo gashay nimankaasaa masjidka baabi'iyey nimankaasaa hooyooyinkii iyo carruurihii iyo ilmahoodina galmiyey wixii loo aasaasay oo ahayd inay dadka isku hayaan in dhaqankoodii iyo diintoodii lagu baro dawladdu ay lacag ku siinaysay nimankaasaa af istaagay iyagaa waxay isku yeereen koox isku wareegaysa dhismihii dhamjisku lahaana iyagaa yeesho yiri waa annagaa iskale marka
arrimahaas oo dhan waxay cadaynayaan dhibaatada meesha ka jirta waxa dawladdu ku bixisaa lacag malaayiin ah oo loogu talagalay activity ilmaha loogu qabto dadka in shirar loogu qabto shirarna kuma qabtaan dadka lacag baa shirarka looga qaadaa ka bacdina 300 oo lacag gaaraysa ayaa lagu dalacaa dadkii oo la yiraahdo wax loogu qabto wax loogu qabtayna ma jiraan arrinta labaad waxa weeye masaajidada Norway ka jirta dhammaantood ilmaha waxa lacagta dawladdu bixisay wax loogu dhigaa oo dhaqankoodii loogu baro diintoodii loogu baro kan isagu waa ka duwan yahay ilmaha yarka ee lacagta ugu badan lagu bixiyahay waxay ku timaadaa inay masaajidka ku soo galaan lacag waalidkood uu bixiyo ay ka bixiyaan xaqba kuma haystaan marka sidaas daraadeed corruption baahsan baa ka jira isku dhiib baa ka jira dhibaatada masaajidku jooga 6 sano ugu soo 7 sano ugu soo waxaan meeshii lagu tilmaami karin buu noqday sidaas daraadeed waxaan Soomaalida u sheegaya iyo cid kastoo ay maqlaysa iyo cid kastoo Ilaahay diintiisa u baqaysa waxaan u sheegayaa in waxa la isku haystaa aysan ahayn qabaa'il aysan ahayn reer u midoobay inaysan ahayn inay tahay gangis isku yimid qaarkood masjidka ay 3 sano masjidna ka ahayn daqadan ay ka saareen dadkii kale sidaas halkaas aan ku caddaynaysaa in 3 kun ay ka maqan tahay oo laga saaray wali dhibaatada ay soo barnaamij kulanka gaaraha gubasho ماشي دسي هيا الله هالمر وصوت دقنا كامل بسوق هذا إنا لله وإنا إليه راجعون والله أحسن عليك ولكن مساكين ما يموجي لم يرفرد الكاميرا وقليسينو ملاينا إن الكاميرا تسوي لون بدلها بلو يكو يسوي ماذا لايف كنا مرة يقدم بس أنا قاعد أنتك السلام عليكم رنهانتي والله بلا وحلا يابله وحاد وحن وحنقول حجرة مساجدك توفيق وحيالها لكم أنا وحبا لك قبكنا رنهانتي ما شاء الله وحاول ما نحاول ummadda Soomaaliyeed maanta aan ogeysiino in ummadda Soomaaliyeed aan u sheegno dhibaatada iyo xanuunka ka jirta masaajidka gudihiisa runtii waxaa muuqdaa waa laba group oo isaysta even though aan rabo group kale aan hadda kor joogan aan xogtooda iyo xiriirkooda marka runtii meeshan waxaa ilaahay ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysana ku codsana inay ilaahay u bariso in masaajidkooda ilaahay u badbaadiyo ummadda Norwayna gaar ahaan magaalada Oslo masaajidkooda u badbaado wax la qaban karo maaha kaliya wax lagu qaban karo waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed ayaga u istaagaan in ayaga masaajidkooda badbaadsadaan waa inay shacabka reer Oslo iyo dhammaan Norway intii ilaahay dartiis masaajidka rabto inuu badbaadiso inay soo istaagaan ay dhahaan enough masaajidkeena نولا جبهة هم ده لابو قلوا كويس تو إنه تو أنا أنا ربي إن عكسه كر وحصار جدية هذا مساجد كمسوق خاصة حاجة لجور الجيل أو كعبنا استقالة الجور الجيل يعيد كميتي يوحى وطن بنانك إسرائيل وحكلت ماشي جو دليل الصوماليين وعيجنا أمسن وكميديا ولكن ربان إن لبض الدين أبى كبحان مساجد كالجور الجيل كاس دليل الصوماليين ودت كم خبرتي حتى دين تنتقلنا ربط مساجد كل إن كانت لكلام سيدا هو شيء ماشي ومل إلهي لو عبادته وجري إلهي ما أهمل قبيل ما أهمل شخص إلهي meel ummadda Soomaaliyeed oo dhanka wada dhaxayso marka waxaan ku codsanayaa dhammaan inta follow ama live ka ku jirto in soo duceysaan inuu masaajidkan Ilaahay badbaadiyo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh live kale barnaamijka hadda bilaabanayo intuu Ilaahay yiraahdo live kale ku soo noqonayo waxaan ku codsanayaa inaad share gareysaan si عبت Soomaalida Norway degan u gaartay cid walba loona soo duceeyo dhibaatada meeshan ka taagan ee xal aad oo maasantii walaalkii miimooga oo idil assalaamu calaykum warahmatullahi iyo kulanti dambe hadhowda xiisada صاحب فريق